السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال وسلامتين مالو باجوكتين سلام الناس Soomaaliya markasta aad joogtiin kusoo dhawaada channelkayga dadkii cusub welcome back marka maanta waxaan doonaynaa inaan idinka jawaabno su'aalihii aad na weydiiseen horta marka ugu horeysa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin su'aalahaad na weydiiseen marka waxaan doonaynaa marka inaan su'aalahan ka jawaabno horta su'aalo baa soo noqnoqday dhowr jeer oo hadda kuwa kale maxay ahayd markaan isbaranay meeshaas ku baranay saas oo kale marka qof baan ka dooranaa oo kale maaragtay marka magaca sheegaynaa iyo qofka su'aashiisa samayn doonaa qayb labaad oo kale laakiin inta hore waxaan ka jawaabaynaa su'aalaha aan kala duwan iyo maxay ahayd intaan ka jawaabi karo insha Allah marka idana sin maartay asashmeynayna Okay, حسنا أنا أخريا مرك عادي مرك هراء أنا كوديني okay. Okay. هذا سؤال وهو رئيس سياق شوية. Okay, سؤال شو هو رئيس حويان Queen you King وحين ودي say and Queen and King more love وحين ودي say وحين تري بسم الله مقعي جوا نيفن وحنكون على هاي ودك كندا سؤال شيء وحويان كو okay لبس سؤال بنودي نسأ Okay, سؤالها لبا سؤال okay لبا دبوين أقرأ okay سؤال ugu horeysa inuu weydiiso waxay imisa sano ayaa wada socoteen guurka ka hor su'aasheeda labaad waxa weeyaan imisa caruura leedihiin waxaad tihiin lamaanihii ugu horeysay ee Soomaali ku hadla waran oo malaynaya okay su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan imisa sano ayaa baynu wada soconeen intii iskuulsan altogether waxaa soo soconaa inta isguursan ma inta isguursanin 3 sano soo soconay 3 sano isnaqaanay 3 sano inta isguursan marka su'aasha labaad waxa weeyaan imsa caruura leedihiin waxaan leenahay 2 caruura okay su'aasha kale waxa weeyaan waxa ay weydiisay Caasha Maxamed I think anigi weydiinaysa umalanaya waxay tiri ninkaaga ma ogolaan lahayd naa kale ناكل أنا شو قبي يا عادي ما تداجر لونا أغلاني أنا هاي بأجر أغلاني أديك بقال له too big for my boots حاجة ده وأنتو بشغل ما قاري كريم البال محاول شيء بنادنك هل ودنو اللي هل ودنك اللي وحان بنادنك ديو عاديا وحلاقيها وأنا إذا هم كسوق قالوا لكن الريال تدين ما توقف قلبك هل لا قلب مقبي لكن هل كليه هل قف كليه وقاعد كرتا هذيك برضو إن بدأ ده يقول سيدنا تعرورت هذه xaaskaagi waana cadaalad u noqotid caruurtii cadaalad u noqotid waana isberi had waa shaq maxaa la jira diiniyan waa wax easy ma dadka bini'aadamka wax fudeed ka dhigtaa laakiin wax fudeed maaha marka waxyaalo qaar laga fiirsado waxaas hal xaas wax dhaama leh marka khayrka kaas ugu jira I believe هذا قفكي واحد اللي شوكتها 24 hours عروتها دول وقتها موقتها عروتها كورسنيسا حتى عروتين واركتين جالك كبوحان marka laakiin jeelku ka baxay laakiin wax weeyaan aaba aan joogin iyo hooyo maaragtay oo malinaya dadka Soomaalida dhibaatada martay dhibaato jirto dumar kale hadii guursadaan Soomaaliya ka rax kale naadi marka waxaan ka wadaa dhibaataan haysto dhibaatada taan garanayno laakiin waxbaan haysto waalidiintii single mother waa bateen single father waa bateen wax fiican ma waxa lagu farxo maaha أنا وحربنا هوي أب أسلوب جوجو سوكران. إن شاء الله إن ماركتي تسارع ونقول ما جريش قصص عتوكله. كذا أنا بحكي على هاي مركو كوريسة يعني بحيث إن ده كماركتي هوي إنكي أبها ماركتي إنك فكرة مركو كوريسة عروت. كذا واحد شوفنا دل إن ديني دقن كودن ماركتي إن الحين مركا هدي هوي دي أبها ماركتي عروت أي مشكلة كنقطان ده بحيث ده حياة يا ماشي تاجر موت social service. قارن بدو
هاي لا هاي نقطة كواس أنا سؤال شو Princess Bella waxay tiri how did you meet saa isku barateen somaa saas la kulanteen how did you meet saas ku barateen way saas isku la kulanay waxaan isku la kulanay saas ku barateen Soomaali ahaan waxaan isku baranay maxay xaafadda aan deganahay hadda aan deganahay aan isku baranay waxaan iyo jaamacadda ka soo baxday oo rafaalka muuqda baska meesha basta taagan ani asxaabteeda soo soconna baska aan soo soconnaa arkay anaga baskii kale asxaabteeda waa ka haray iyadaan ku haray insha allah waad si sheeg tan ha sii dheerayn mar kale haddii doonta ka hadlaysaa laakiin waa run saas isku baranay meel bus stop anoo jaamacad ka imid habeen ay xili dama tahay because wax library-gan kusoo habsaamay ها جامعة كيمي لكن ها جامعة كيمي مركز جدا ببعيد لكن حكى ودا لايبرري جامعة ها ماشي الوقت ما تروح الوقت وحبان ديرني anyway يعني نوها محمد بنتري وحيتري سلام guys may Allah bless you all what do you guys do for living how do you go to work when the school holiday starts take care عاد بعد ما سنتي نوها محمد marka anaga maartay waxaan ka shaqeeyaa ana part time hadda ka shaqeeyaa waxaan ahay personal assistant kiila ku qabsatay adaa ku qabsatay waa islaawe personal assistant waxaa lagu waxa weeyaan qof maaragtay qof maxay ahayde waxaan u garaacaa like waa qof waxay ka shaqeysaa waa qof journalist Soomaali maxaa lagu yiraahdaa journalist oo BBC da ka shaqeysaa baan maxay ahayd u shaqeeyaa oo ida loo shaqeeyaa u shaqeysaa marka qofkaas anigu maxay ahayd waxyaabo garaacaa note kan qaadqaadaa maxay ahayd telefono I organize her journey taas u shaqeysaa hadda part time ahaan part time laakiin hadda maxay ahayd waxaan ku jiraa waxa yiraahdo maternity hal sano oo maadaama hadda mar baby waxaan 3 bilood hadda noqotay gabadheeda 3 bilood bay noqotay marka maxay ahayd hadda ma shaqeeyo shaqada waxaan ku noqon doonaa insha Allah sanad naas 8 bilood ka bacdi insha Allah marka hadda ma shaqeeyo ciyaalkaygana iskuul wali ma tagaan marka ha mid wali laba sano ma noqon mid kalena waa 3 bilood marka wali caruur iskuul tagta ma haysano aniga ku soo haray aniga waxaan ka shaqeeyaa airportka waan ka shaqeeyaa su'aasha kale waxa weeyaan waxaan weydiisay Manaal Maxamed aad baad mahadsan tahay Manaal waxay tiri maxay ahaydee assalaamu calaykum sis after salaam guurka uu caqabado badan yahay Soomaaliga aqriska waa khasbaya wax walbana rafaad baa loo maraa soo su'aashayda waxyaabihii ugu adkaa oo guurkiina la kulanteen wax ma noo ka sheegi kartaan ilaaha idin xafido aamiin dhammaantiin aad baad mahadsan tahay maxaad odhan lahayd guurkeynteen hadda in la kulmay waxaa inagu adkaa guurka marka inta isguursanay somaha ma umalanaya ka wadaa intaas qabnay intaas qabnay wallahi bilaa rafaad badan wax adag hadda ugu adag waxa waa gurigan hadda aan maaragtay aanan deganayn weli gurigan sataltaan ahayn maxna aad degnayn maaragtay ugu adag waa dhinacaas hadda especially maanta markii laba qof keliya markaan ahayn iyo markii caruur imaadaan waa isku mid maaha waxay mas-uula kusoo koraya mas-uul waa dareemaysaa marka ilmahaga maaragtay waxaad jeceshahay inuu meel comfortable haddoo kale ilmaha caruurteeda maaragtay qol uma diyaarin karo toy badan uma soo iibin karo because waxaad odhanaysaa maaragtay alaab badan ma soo iibsanayo because waan baxayaa waan sii socdaa maogta maaragtay waa qof xiran baa tahay 24 hours marka dhibaatada ugu horeysa waxa weeyaan guri la-aan oo malaynaya intaas ku dhac laakiin ha marka alxamdulilah walahay dhibaato kale oo iska dhibaatooyin maaha kuley waa la helayaa laakiin arrintaas iska ha ma intaan isqabnay hadda wax waa dhibaato ma arkin labadeena iska caadi luuqiin waa yari alxamdulilah okay so su'aasha kale waxa weeyaan Suhan Mire waxay tiri suraan ku salaamaya waxay tiri I love you guys my favorite Somali couple my question for you what was your marriage love one or arranged one thank you by the way su'aalihii so English marka lagu qoro waan turjumaya marka maxay ahayd gabadha Suhan waxay tiri su'aasheedu waxa weeyaan what was your marriage love
aroskiino gurkiina wuxuu ahaa mid maaragtay lisukay keenay oo maaragtay sida lisukay doortay oo kale soo maaha family arrange marriage ama family ma sukay keenay mise waxa mid anagu aan isjeclaanay anaga isjeclaanay because labadeeda family isma waqonba like waxaan kala nahay laba qof oo kala fog soo maaha isku Soomaaliya oo kale waxaan kala nahay labada meel kala fog marka anaga isjeclaanay anaga isdooranay marka ma ahayn mid isukay keenay anyway maxaa heeday su'aasha kale waxa weeyaan waxay ka socotaa Mercy Harris waxay tiri salaam Fatima iyo Cabdi ilahay ay haydin barakeeyo amiin wad ku mahadsan tahay my question is how do you manage work and raising small children? Some are in school. Also, what are the ways you manage? Su'aashan haween sida maaragtay maamushaan school iyo caruur idinkoo haysta. Marka horta su'aashan waxaan ka jawaabnay ma haysano wili caruur maaragtay school aado. Marka shaqada markaan nagu shaqeyno anigu waxaan shaqeeyaa part time markaan anigu shaqeynayo caruurta waxaan kaga tagaa hooyaday baa sida haysa marka waa inta yar wili waa anaga waxay noo tahay waa easy wili waa fudud tahay alxamdulillah marka maadaama wili baa anigu aan intaan hadda caruurta dhalay part time shaqeeyo way fudud tahay marka it's easy waa wili way fudud wax adag maaha wili marka that's is not a big deal to manage alxamdulillah هايو إلهي الحمد لله هاي هاي سنة أوكي سؤال شكله حوالي شكري حاجي وحيون وديسي شكري حاجي وانكو سلامي ولا له سؤال شك واحد تروح هواي إنتي إسكو بارتين معناه قابتا كوكولتين يو تشويق سيدو أها ولا له مهسند حماس سؤال شو كتشوف من أمريكي ها وحاسكو براني محافظة عندنا هاي ويستلاند عندنا هاي جوينا فيها جوي ما حاسس على هوا سعيد حلي دم بأهيد لكن وقتي مغرب وقلي نو مغرب ما وحي سجاك يوم هذين حبيني مو سجاك حبيني ما هيد كزوان حاسس تليت فان شامعتك ما كإمي وحبان ما أنت روح بان قري وحبان زيارني مركا محيد وان دالنا حلي دم بأهيد بس ما سوقي marka ila xasuus fiican ha dumarkoodna saasaan nahay waxa ma ilaawno moogtay because waa maanta ugu horeysaan bartay soo ilaawa common so ha jawiga walahay waxay ahayd November ba ahayd marka uu iska qabow ba ahayd oo kale intaas xasuustaa ma xasuustaa jaakada wantay marka ha waa qabow ba ahayd qabow ba jiray marka habeenna way ahayd meel bastabna isku baranay marka wakaas su'aasha kale waxa weeyaan is from super Somali girl waxay tiri ma jirtaa wax gooni ah oo ku salaamay walaalo super Somali girl waxay tiri ma jirtaa wax gooni ah aad tilmaamo karto ninkaaga ku jeceshahay thank you love you too wax tilmaamo aan ku jecelahay waxa weeyaan waa degan tahay aad ma sha Allah waa qof maxay dulqaad badan dulqaadkaaga jecelahay qalbigu naxariista no dulqaadkiisa waxa weeyaan waa qof maxay hayday waa qof dulqaad badan ma sha Allah waxyaabaha ugu horeysa aan arkayna waxa weeyaan qof ixtiraam badan aad wad ka arkaysaa maartay qof baad I don't know saynu sheegay laakiin qof baad ka dareemaysaa marka number 1 waxaan weligay aan isla maalintii aan bartay baan ku arkay waxa weeyaan waa qof degan oo dulqaad badan oo ixtiraam badanna marka labadaas horta waxaas labadaas maanta kugu jeclahay labada idinka joogtay maana halkaas kaamar marada okay yeah so laakiin waxyaabo badan oo waxa ku tahay special like wax gaar ah maaragtay kaga duwan tahay dad badan arkay dulqaadka horta ma sha Allah thank you dulqaad badan dumarkana maaragtay hadii qof aan u dulqaadan maxay hayday ninka maaragtay haduu dulqaad lahayn oo malaynaya walahi dumarku adag yihiin marmar bacmida oo dambayso bacmida waliga ma arkaysan dawar insha Allah okay I think maxay hayday su'aalihi hadda inta badnayd because inta badan ku soo noqonayaan marka inta badnayd oo ka jawaabnay insha Allah hay qaybta labaad baan inta kale su'aalaha kale soo gelin doonaa insha Allah marka
haddaad jeclaateen like gareeya subscribe gareeya of course share gareeya insha allah marka qaybta labaad hadduu ilaa yiraahdo waa sii jegaraynaa insha allah markaasaan kasii jawaabayna hadduu ilaa yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh